su-aashayda waxay tahay 24 hours 24 saacadood waxaa laga yaabaa 14 saacadood ka mid ah ama 20 saacadood ka mid ah inaadan adiga shaqo ku lahayn oo 10 saac isaga iska jiifa habeenkii ah oo 9 saac oo lagaa haysto 3 saac oo subaxda hore markuu soo tooso maamada intay yaro gurayso oo alaabtii wixii ay u diyaarinayso timekaasi sidee loo manage garayn karaa waxaa laga yaabaa waalidka xilliga shaqada aadayo ama waxaa laga yaabaa waalidka laftiisii iyo caruurta inay wiigiiba is arkaan 2 jeer ama 3 jeer ay is arkaan waa isdhaafaan macnaha marka waxaa waaye inta yaroo iskuulka uu ka maqan yahay waalidka waa jiifaa markii cunuga iskuulka ka keenana shaqu sii aado isdhaafayaan macnaha sometimes waxaa laga yaabaa waalidka uusan arkin oo wiilkiisa maxaa dardaaran intee la-eg ayaad siin lahayd community-ga iyo dadka kugu xiran bartaadii facebooka ama youtube-ka maxaa dardaaran siin lahayd dhanka time managementiga su-aal fiican waayo ustaad maxamed horta waxaan dhihi lahaa horta caruurta iskool ay ku jiraan waan ognahay qof kasta caruurtiisa iskoolkii ka reeb lama dhahayo laakiin adi dadaal ilahay qur-aanka wuxuu ku yiri laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusaha wixii adiga dadaal haddaad muujiso wixii ilaahay u daa waalidiinta waxaa la rabaa adiga cunuga waa la ogyahay subaxdii intuu guriga joogay inta iskoolkaa badan iskoolkiisa soo dhigta laakiin aniga horey waxaan dhahay su-aasheeda waxaa ku jirtay cunuga adiga waqti geli markuu isaga uu imaado waxaa lagaa rabaa adiga inaad la socotid wixii loo soo dhigay homeworkis wixii macnaha buugagtiis duruustiisa maxaa soo qaadatay cunuga waa lala hadlaa waa lala sheekaystaa wax kasta waxaa waaye asaa ku waramaayo wax kasto haddii cunugaaga adiga aan la saaxiibina wixii iskoolka looga soo sheegay kuuma sheegayo markas waxaan leenahay cunugaaga adiga la saaxiib kadib maanta maxaa lasoo kulantay anaga markii yareyn wixii dugsiga aan kala soo kulan iskoolka waalidiinta waan u sheegi jirin maanta waxaasaan aragnay hebelaa dugsiga imaaday saasaana la dhahay hebelaan waxaan dhihi jirin marka adiga waxaa lagaa rabaa adiga cunugaaga haddii saaxiib aad noqotaan reerkaaga haddii cidba hadday isku xiran tahay waxa waaye wax kaama halaabayaan ilaahay u daad laakin dadaal mooji ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala adiga haddaad dadaashid ilaahay banaacidla kuma dhigayo ilaahay caruurtana ha loo duceeyo caruurtana ha loo duceeyo caruurtana in loo duceeyaa la rabaa oo salaadana lagu dadaalo oo guriga cunuga naftiis waxaa waaye adigana intii dadaal ah adin ilaah rabbigiis ku xir waamur ahlaka bisalaat laakiin haddii adigaa dhahday iskoolkan waxba igama jira cunuga xagguu jira habeenkiina waxaa waaye shaqaan aada maalintii adiga cunuga haddaa waqti aad isku weysaan beri markii cunuga faraha uu ku bato oo maskaxdiis wax kale lagu shubo marka wareer iyo stress waxba kuma taraaye marka waxaan leeyahay markasta adiga ilaahayna tala saaro watawakal cala allah kadib cunuga la saaxiib aada mahadsan tahay sheikh laakiin mala dhihi karaa tusaalooyin yar markaan soo qaadano meel fara badan waxay jiraan oo lagu degan karo oo sida soomaalida qaar ay u nool yihiin ama qurbaha meelaha kale ay ku nool yihiin in madaaris oo hufan oo maxaan ku irahdaa oo la sameeyo oo markaa loogu hortagi karo jahliga iyo isfaham waaga ama farqiga oo generation gapka hadda waxaa jira marka qurbaha markaan joogno waalidka caruurta inta badan isfahmin macnaha waxaa jira marka gaab baa jira generation gap dhanka xorriyadda marka laga hadlo xorriyaddu asiga iskuolka markuu tago qaab si waxaa loo fahamsiinayaa si ka duwan qaabka adiga wax u fahamsiinaysid maxaa yeelay waa la jeclaysiinayaa waxyaala fara badan waxaa loo sameynaya soo jiidasho attraction fara badanaa loo sameynaya laakiin waalidka soomaaliyeedna wuxuu rabaa wax kasta inuu maqiiqiyo awood fara badan ama u isticmaalo ama inuu garaaco ama waxyaala fara badan macnaha waxaa jira marka dhanka xorriyadda waxbarashada qaabka wax u baraysa inay tahay tii aniga wax kusoo baranay oo dugsiga qur-aanka ushii in lasoo qaato oo la garaaco qofkii waxyaala fara waxaa kala jira waxyaala fara badan oo dhaqanka ku salaysan ee waalidka laftiisa kusoo barbaaray oo waqti kusoo qaatay ay ka duwan tahay halkan oo xitaa marar qaar aa weydiisad caruurtaada dugsiga iskuolka ayaa dooran lahayd iskuolka maxaa yeelay iskuolka wuxuu ku dooranaya wax kale ma ahan xorriyaddii iyo xorriyadda maxaan ku irahdaa iyo jeclaysiinta attractionka iyo nacnacaya iyo waxyaalahaas oo gacanta laga saarayo waa faham iyo dhaqan
oo inaga soo horreeyay oo halkan weligiisay in badan maxaan ku rahda olima marka sidee see loogu gudbi karaa waxaa la yidhaahdo generation gapkani fahamka caruurta iyo maxaan ku rahdaa dhalinta hadda soo baxayso iyo waalidka waxaa la rabaa marka faham kala duwanaa jira oo xagga xorriyadda marka la yidhaahdo dhanka waxbarashada marka la yidhaahdo iyo dhanka shaqada xitaa haddaba aan ku daro marka farqigaasi sidee loogu gudbi karaa wayna adag tahay wax dhaqan ku salaysan in 1 day 2 day 3 day lagu bedelo way adag tahay laakiinse maxaa ku dari kartaa oo fahan ahaan sax waa su-aal fiican waaye waxaan ku dari lahaa in oo iskool oo islaamig ah waddanka hadda anaga aan joogno xagan u leenahay in oo community intay fadhiistaan oo iskool islaamig la asaaso oo maadooyinkii diinigii iyo wax kasta lagu qaadan kara haddii la samayn karo waa arrin fiican waaye iskooladkaasina waxa waaye waxay u baahan yihiin dad badan hadda oo qurbaha nagula nool North America iskool islaamiga jira oo caruurtooda u dhigata oo ayaga macnaha laakiin lacag inuu waalidku waxaa la rabaa inuu lacag oo macnaha uu bixiyo uu quuro sababtoo ah adiga haddii cunugii mathalan lagu lahaa $500 bishii haddii lagu dhaho waxaa laga yaabaa inaan dhahdo lacagtan waa badan tahay markaas ileenkan adiga lacagta cunuga horeyna waxaan dhahnay in oo dhul la dhiso iyo in caruur maskaxdooda la dhiso caruurta muhiimsan caruurta wax kasta ka muhiimsan